haddii faqri iyo gaajo iyo amni darro iyo dhibi ku soo marto inaad sabirtaa loo baahan yahay ilaa aad ka gaadhaysa nicma alcabdu innahu awaab haddii magac iyo maamuus iyo xoolo iyo sulto iyo waxaan ku soo maraan iyana imtixaan kalow inaad shukri noqdo abaalkeed marisaa baa lagaa rabaa ilaa aad ka gaadhaysa mansilada ah nicma alcabdu innahu awaab idan waxaan leenahay dunidu aynu ku nool lahay waa imtixaan gebigeedba nabluukum bisharri waalkhayr bay taagantay ambiyaduna waa dadka ugu badan ee imtixaanka la geliyey nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka mid yahay ambiyada imtixaanaadka oo dhammi soo mareen isagoo laga xoog badan yahay oo saxaabadiisa hortiisa lagu tumayo lagu garaacayo uu soo maray isagoo xoog badan oo sulta iyo power haysto dowladdiisu xoog badantay oo dadku afwaajan diinta u soo gelaya uu soo maray waxay idhahdaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam muxamedi imtixaanaadka dhammaantood wuu soo maray ay imtixaanaad sheegata bay leeyihin haddaad siirada nebi moxamed akhrido waad ku arkaysaa wax u dhigma ay imtixaan bini aadam uu sheegtana qur-aanku taariikhda uu ka warramaya ambiyada waad ku dhex arkaysaa maalan nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam fitnatu lqariib buu soo maray dadkii u dhowaayoo lagu imtixaamay isagoo rasuulah oo ilaahay soo diray oo dadka khayr u sheegaya ayaa dadka kuwii ugu dhowaa beeniyeen abujahl iyo abulahab iyo quraysh iyo tolkii ugu dhowaa adigoo wanaag sheegayoo lagu leeyahy waa kadaab waa beenaale ama waa saaxir ama waa caynkan uu tilmaamayo ilaa xad intay daba galaan adeerkii uu daba socdo oo markuu is idhaahdo cidla hadal uu idhaahdo anaa wiilkan adeerkiiyo waxba ma oga waa sixirroole iska dhaaf haddii adeerkaa ku daba galo bal aduu qiyaas adeerkaayo aabbahaa la dhashay oo kaa weyn hadduu ku daba socdo oo midhkaad sheegtaba cagsigeeda uu sheegayo u leeyahy ka yaranagaa dhallayoo waa adeer baanu ahay waxna kama jiraan waxa uu sheegayo yacni cidhidhigaad dareemi lahayd intuu leekaanaya kii kuugu dhowaa markuu xadkaasi kaa taago ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u soo dejiyey qur-aanka markaa laynoogu tilmaamayaa imtixaanaadkaasi wax lagaga gudbo oo ay ka mid tahay inuu qalbiga bini aadamku cidhiidhigaasi aanu dareemin cidhiidhi kastoo aad dareemto wax lagaga caafimaado alaslu qur-aanku wuxuu tilmaamayaa alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub ilaahay xuskiisa in qalbigu ku dego nusuus badan oo qur'aan iyo xadiidiba way soo arooreen markaa masaa'il badan oo noocaasiya ka warramayaan bitafsiil salliga nebiga ka mida kuwa laakiin waxaan u dan leennuun inaan maanta ka hadallo التصبيح فقط تصبيح ويريق معنيش وحويا سبحان الله مركا هذا إلهي باد حمكه في سابي ورجرين علماء الصومالية أما سكة لهذين نوت المامنو وتنزيه ربي عن النقائص وإلهي سبحانه وتعالى كان الزهي سكف بينيسو عيب أردن إلهي ومعن تنطبع ذلك وحن نقصية أردن إلهي ومعن طبع إلهي كمالاتكم باوعن طبع الحمد لله بأمركا إلهي أد كمالك وصغيس إلهي وحو قرآنك كله يمركا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون مركا إلهي كصور رمي استهزاء قرآنك كسميين إلهي كتابك كسميين ربي قال لماذا كقالوا به وحي حمى الشيغيان إلهي أبورطو وحي كشيغيان نبي كسيغي وحا كشيغيان dadka waxaan ka sheegayo qariibkiiyo dadkii ugu dhawaaya ayaa ilaahay wuxuu leeyahay fi suurati al-hujuraat walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruk wa ognay baa ilaahay yidhi in laabtaadu cidhiidhiyoomayso waxay kugula hadlayaan iyo waxay alla ka sheegayaan ee adiga waxa la rabo fasda' bima tu'mar wa a'rid 'ala al-mushrikiina inna kafaynaka al-mustahzi'in alladhina ilaahay wuxuu soo sifeeyey waxa ay samaynayaan dabeetana waxaa la yidhi walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruk waa ogna in laabtaadu cidhiidhiyoomayso ee fasabbix bixamdi rabbik wa kun min asaajidiin fasabbix tasbiixso ilaahay xumo ka huf multabisan bixamdi rabbik adigoo ku maraya amase ku dheehaya
alle ammaantiisa wakun min asaajidiin inta sujuudaysa ilaahay fooda dhulka u dhigaysana ka mid noqo culammadu waxay yidhaahdaan maxaa diiqu sadri inta laga warramay loo yidhi fasabbix waxay yidhahdaan huwa tiryaaq waa dawaa'un yustashfaa bihi waxa lagu caafimaadaya waxa way markii xanuunka loo sheegaya dhibta haysata ayaa ilaahay yidhi sidaa yeel sida nebiga la yidhi yeel bay culammadu leeyihiin waa sida laabtu ku caafimaado walidaalika baa qur-aanka meelo badan waxaa ku soo arooray qad naclamu innahu layaxzunuka aladii yaquuluun ama falacallaka taarikun bacdu maa yuuxaa ilayka wadaa'iqun bihi sadruka an yaquuluu lowlaa unzila calayhi kanz aw jaa'a macahu malak falacallaka baaqicun nafsaka calaa aathaarihim in lam yuuminuu bihada alxadiidi asafa aayaad badan baa soo arooray oo nebiga calayhi salaatu wasalaam dadaalka uu diinta u hayay iyo dhibta lagala hor yimid iyo cidhiidhiga uu dareemayo wada tilmaamaya idan waxay culammadu leeyihiin cidhiidhigaa waxa lagaga baxaa laabta qofku ay saafi noqotaa qalbigiisa itmiinaanku galaa raaxatulbaali wanafsi uu ku helaa waa masaa'ilkan ilaahay u tilmaamay subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim ama tasbiix ilaahay oo aad u tasbiixsato iyo adigoo inta sujuudsan ama inta tukanaysa ku biira qur-aanka markaa meel kasta ama meelaha ugu badan ee nebiga la farayo in dhibaatooyinkaasi la kulmayaan waxa la farayay ama salaad iyo tasbiix nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka xadiidka saxaabadu ay warinayaan uu ku tilmaamayo idaa xasabahu amrun baadara ila asalaa haddii uu arrin dhib geliyo haddii warwar ku dhaco haddii wax mashaakila la kulmo baadara ila asalaa baa la yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadduu u degdegi jiray sidaa awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa qur-aan tiro badan oo sabir iyo tasbiix sheegaya fasbir calaa maa yaquuluun wasabbix bixamdi rabbika qabla طuluuci shamsi waqabla guruubiha ومن الليل فصبحوا أدبار السجود في سورة غافر إلهي وحليه فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وصبح بحمد ربك بالعشي والإبكار في سورة طور إلهي وحليه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وصبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فصبح وإدبار السجود وإدبار النجوم في سورة الإنسان فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا صور كائن صور آخرنا يوردن الله سبحانه وتعالى وحو النبي محمد عليه الصلاة والسلام وطل ماميا وحا وكلكل ما يددكاسي إنا يهين وحا عديدي قلينيا waxay ku hadlayaan wax xun inuu yahay nabiguna calayhi salaatu wasalaam rabbi wax ka sheegiisa iyo diinta wax ka sheegeeda inuu cidhiidhi dareemi doono dabeetana waxaa loo tilmaamay sabir tasbiixsana ama tuko suwar kalena iyadoo salaada iyo sabirku isku xidhan yihin wastaciinuu bisabri wasalaa ilaahay uu ku tilmaamayo waa soo aroortay waxaa kaloo soo arooray nabiyullaahi yuunus dhannuun oo tolkii markuu dhib kala kulmay ka tegay isagoo cadhaysan oo moodayeen inay ilaahay u qabanin say mufasiriintu tilmaamaan oo dabeetana bad tegey doon fuulay si kastaba ha noqotee isaga sahmiguu ku dhacay doonta ha la khafiifiye la yidhi nebiyullaahi yuunus doonta laga tuuray dabeetana wuu cunay ama iltiqaab uu libqiyey nimiri xuut weyl ayaa libqiyey alla wuxuu tilmaamayaa meeshaa cidhiidhiga ah markuu galay waa cidhiidhi halkii u dambaysay baddu marka hore ilaa geed la cuskadaanatay haddaad badweynta ku hafato marka horeanad nolosha laga quustaa haddana haddaad bahal calooshii sii gasho hadaa walba bad ku jiray haddana bahal calooshii aad sii gasho waxaynu odhan karnaa waa
meeshii u dambaysay ee nolol lagaga quusan lahaa halkaa markuu galay baa ilaahay yidhi wadannuuni id dahaba mugaadiban fadanna an lan naqdira calayhi fanaadaa fi dulumaat mugdiyadaasuu ka dhex dhawaaqay baa ilaahay yidhi muxuu ku dhawaaqaya waxay culammadu yidhahdaan habeen madow oo bad madow oo bahal calooshii uu ku jiro ayuu dhawaaqay oo maxay leeyahay laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin wuxuu leeyahy laa ilaaha ilaa ant ilaw keliga ayaa xaq lagu caabudaa subxaanak erayanuu soconayna waa subxaanak rabbow xuma ka hufnaanta ceeb adigaan lahayn